بسم الله الرحمن الرحيم كudlada toosin qaran ayadoo maanka ku hayso tubta sharciga ee dhameystirka dastuurka isla mar ahaantaasna marxaati u haysata isla madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo horay u sheegay in xafiiska madaxweynaha aysan shaqo ka bilaaban aan ka ahayn magacaabista ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya balse shaqadu ku dhamaato ayaan halkan ugu soo joodinaynaa talooyin mangal ah sida in uu xafiiskiisa ku sugo xeerinta howlaha ka imaada laamaha kale ee dawladda sida baarlamaanka xukuumadda iyo hay'adaha kale ee madax bannaan haddiise uu yahay madaxweyne u caaboon dhamaystirka dastuurka waa in uu ahmiyadda siiyaa shaqooyinkan gundhiga u ah dowlad dhiska iyo qabyatirka dastuurka oo ay ugu horeeyaan kow maqaamka caasimadda ee muqdisho oo uu mudaxileedkii horena ka tegay haddana uusan u diyaarsanayn inuu u sameeyo maqaam ay bulshada ku naalooto ku helaan xuquuqdooda mataladeed iyo mid adeeg bulsho labo sameynta maxkamadda dastuuriga ah oo ayadana hadalkeeda uusan soo qaadin hadda iyo mudaxileedkiisii horeba isagoo ka cararayo in ay caqabad ku noqoto sharciga uu rabo in uu shaatigiisa ku cabirto saddex dhismaha golaha garsoorka ee uu kala diray taasoo meesha ka saartay helid garsoor lagu kalsoonaan karo afar dhismaha golaha la dagaalanka musuqmaasuqa ee uu kala diray taasoo shaki gelisay hufnaanteena maaliyadeed iyo in ay dhab ka tahay madaxweynaha la dagaalanka musuqa bal isa saara wacdiga isbuuclaha ah ee madaxweynuhu masjidka madaxtooyada ka jeediyo jimco kaste ee ka dhanka musuqa iyo kala diradda guddigii loo asaasay la dagaalanka musuqa shan kala xadaynta iyo asteynta awoodaha dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka oo abuuray jahwareer dunida noogu yimaado dhaqan dil dowladeed madaxweynaha waa in uusan iska indha tirin qodobadaas cadcad ee dhamaystirka dastuurka lafdhabarka u ah uusanna jid qardajeex ah dalka iyo dadka ku ambin run ahaantii tallaabo kasta oo keenayso bedelidda mabaadida guud ee dastuurka iyo nidaamka isu dheelitiran oo ay ummadda Soomaaliyeed ku heshiisay dib u askunkii dowladnimada ee carte waxay u baahnaanaysaa shirweyne dastuur oo la mid ah kii lagu ansixiyey dastuurka kumeel gaarka ah 2012 ayna ansixiyeen 230 ergada shirweynaha tilaabo kaste oo kala geyn karta dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxay kudlada toosin qaran iyo shacabka Soomaaliyeedba u fasiran doonaan ka cararid shaqadii asaasiga ahayd ee madaxweynaha ku yimid xafiiska doorashadii May 15keedii 2022 madaxweynaha laga yeeli maayo aniga idin og ee aamusa haddii ay wanaagsan tahay waxa uu noo og yahay waa inuu la wadaagaa ummadda Soomaaliyeed dalkan waa ka weyn yahay wax qof kaligiis ama koox yar ay garabka saarato kudlada toosin qaran waxay soo dhaweynaysaa tallaabo kasta oo xaqiijinayso qabyatirka dastuurka iyo isku haynta dalka ugu dambeyn waxay kudlada toosin qaran soo dhaweynaysaa dadaalka madaxweynaha ku bixiyey la dagaalanka nabadiidka kuwaasoo muddooyinkii dambe lagu baacsanayay jiidaha hore ee gobolada dalka isagoo madaxweynaha halgankaas keli ku ahaa kuna hogaaminayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka ee macamusleyda oo kaalin mug leh ka qaatay waxaa iyana bogaadin mudan amniga caasimadda oo aad u soo hagaagayo bilba bisha ka dambaysa taasoo ammaan iyo bogaadinteedaba ay mudan yihiin hay'adaha kala duwan ee amniga waxaan la dafiri karin doorka hogaamineed ee hoggaanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo habeen iyo maalinba ku howlan ka hortegidda khataraha ay soo maleegaan kooxaha nabadiidka ee khawaarijta
taasoo suuro gelisay inay noqotay caasimaddu mid xasiloon. waxay sidoo kale kutladdu bogaadinaysaa shaqooyinka la dhammaystiray ee qaranka muhiimka u ah, kuwaas oo uu waayay madaxweynuhu cid uu kaga nasto, sida deyn cafinta, qaadidda cunaqabataynta hubka iyo ku biirista ururka bulshada Afrika, oo dhammaantood ahaa shaqooyin muddo soo socday ayna ka soo shaqeeyeen dowladihii dalka soo maray. وبالله التوفيق. Isagale, 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 Isagale. Agasi mahbub Isagale, dekatiyo aeroport Isagale, arrimaha bulshadana Isagale, awaamirta ciidanka Isagale, aruurinta canshuuraha Isagale, ambaqadka filadana Isagale. Isagale, 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 Isagale. Agasi mahbub Isagale, dekatiyo aeroport Isagale, arrimaha bulshadana Isagale, awaamirta ciidanka Isagale, aruurinta canshuuraha Isagale, ambaqadka filadana Isagale. Isagale, Isagale, Isagale.